hore baan u sheegay waa la isku bartaa waa lagu kaftama baagamuudana ilaa iyo wax badan baa baagamuudaha oo baararka odayaasha dhex fadhiisanay wali wax isfeeray oo maanan arag waa la isku maxanaaq rag bislaaday gaboobay soo shaqeeyay siyaasad oo dhan soo maray ayaa meesha fadhiista ilaa 13 sano baagamuudo wahay ayaan dhex joogay gabdhaha xataa la isku siiyay ragaan aqoon waa arkay rag isbartay meesha isku bartay aqooni oo xididay waxa isbalansi ama jiraan in laga baaraandago mowduuca laga doodayo wuxuuna ku bilowdaa hadal tuurid iyo asxaabta kale oo ay la jaan qaadaan waxaana marxaladda kadib ay noqotaa fadhi ku dir waxaana sidaas ii sheegay mar kale Maxamed Salaad wax siyaasad oo meesha la yimaado ma jiro nina siyaasad ma wato meesha un baa waxa laga leeyahay saan way midba dawladda wax ka sheegaya war dawladdu waa fiicantay waxba ha ka sheegin sidoo waa loo kaftamaya kaftan kaasuba kuwa dhamaadaaba waana la isku bartaa la isku mana xanaaqo koox male qofba meeshu rabo iyo meesha la isku maada waa la sheegaysta waa la kaftamaa ma garatay la isku xanaaqo xataa ninka xoogaa xanaaq laga arko meesha ragga hal soo fariisan baa laga karantiin amal weeye haddii odayaasha fadhi ku dirarka u gaar ahayd waxa kula biiray dhalinyaro oo la fadhiya odayaasha isla markaana ka qayb qaadanaya siyaasadda socoto wallahi hadda waxa soo ku soo biiray 25 jira hadda ku soo biiray marka awal waxa bay ahaan jirtay odayaasha waaweyn laakiin hadda 25 jira ku soo biiray 25 jirkuna hadii fikradu soo wata kii ku fiicanna waa sii soconaya raggiisu soo dhagalaya kii kalena waa laga saaraya meelaha hadda anagu tagno lagama yaqaan nin xumaasada lagama yaqaan ilaa iyo lambar 4 way ka soo rogay yaan tagnaa ma kala fikirnaa duwaashano iyadoo marna waxa la kala tagayaa iyadoo fikradii lagu kala duwan yahay marna waxa la kala tagayaa iyadoo la ismaamay isxurasho mataalo oo sida kubadda cagta la isku kooxeysanayo oo waxa si isku mid ah u kala kooxeeyo siyaasadda laga hadlayo Cabdullaahi Maxamed Erig ayaa wuxuu ii sheegay falsafadaasi inay qayb ka tahay waxyaabaha loo garto fadhi ku dirarka waxa uu bixiyay ma jiraan qof walba ra'yigiisa siyaasadda wuxuu ka qabo marka laga wada hadlayo يصير يقولون أنت يبغى كهلا جروب بارنا يسرع جروب كي يسكو سياسة ضبا يسكو فكرة بكرة عن واحد قالوا كده هيو كلنا متيران وعركتي سياسة ده بدون كنا مله وقت تشوكتا يسحب تشوكتا دن تشوكتا يلا هذا هاي أنت يسكو داروا سياسة ده عركتها ساس يسرع على يسكو من أولاديو أولادنا مله ميرها اللي جانا دوين هذا السياسة ده وحلي هذا وعركتي أما برلمان هالنقطة أما وزير هالنقطة أما دوين هالنقطة أنت إسكو عركتي إسكو سياسة إسكو هدفه سياسة نضونا بلا عرض dhibaatooyinka xiliyada qaar ee hakad geliso waxa kamid ah isku dhaxmara odayaasha aan hadda ka hor odayaal isku feeraya fadhi ku dir meesha ay iska waanin lahayn ay ku geysay in ay isu dalbadaan lama jinfo oo markaas loo fadhiisto arintoor dhibaatada ayna leedahay in wax fadhi ku dir ka soo bax lama jinfo ay u fadhiistaan ay ku gargooyaan doorasho male wax doorasho leeyahay male waa fadhiga shaadii lacab oo maskaxda juusta noqoto ayaa waxa soo baxay siyaasadda la isku aflagaadiyo oo qofra difaacayso qofra soo alifayso meelaha maqaahidaha iyo goobaha kale ee dadka isku yimaadaan ayaa ah mid odayaasha ay ku qaada dhigaan siyaasadda dalka uu marayo aad iyo aad ayuu mahadsan